barnaamijkan soo socda waxaa bixiyey saaxiibada iyo howlwadeennada Joyce Meyer mashruuceeda. Waa idin dhiirigelinayaa caawa. Uma baahnid inaad cabsatid. Waad dareemi kartaa cabsi, laakiin uma baahnid inaad cabsatid. Farqi ayaa u dhexeeya inaad cabsi dareentid iyo inaad cabsatid. Waad sii socon kartaa jilbahoo ku gariiraya, afkoo ku qalalan iyo wadnahoo ku garaacaya. Waxaadna dhihi kartaa Ilaah ayaa ila jiro. Weligay igama tegaa imana dayrinaayo. Waana samayn wax walba oo aan rabo inaan sameeyo. Mana cabsan doono. Caawa waxaan idin barayaa ka hortegidda cabsida iyo helidda xorriyadda. Waxaa iga yaabiyey sida cabsida wax badan dadka uga xaddo iyo sida ay cadaab ugu keento noloshooda. Waxaan aaminsanahay in cabsidu tahay ruuxa ugu xun oo shaydaanka isticmaalo si uu dadka uga horjoogsado horumarka. Idiinma hayo fariin ah inaadan weligiin cabsi dareemin. Laakiin waxaan idin bari karaa sida u wajihi lahaydeen cabsida iyo inaysan ku xukumin. Markaa wax badan wajahdid, wax yar ayuu shaydaanku ku dhibi karaa. Rumaysadku waa waxa keliya oo ka guulaysta cabsida. Haddaan haysano rumaysad, waxaan ka helnay Ilaah. Haddaan haysano cabsi, waxaan ka helnay cadowga. Cabsida oo laga xoroobo waa inaysan cabsiduna xukumin. Waxaad ka dareemi kartaa jirkaaga iyo dareenkaaga cabsi. Laakiin waan diidi karnaa adeecidda hanjabaadda iyo handadaad. Waa inaan baranaa adeecidda Ilaah oo aamino inuu nala jiro hore ayaan u sii soconaynaa waqtiga cabsida. Geesinimo macnaheedu waa inaad horumar sii samaysid adigoo weli dareemaya cabsi. Waxaan baranay wax ka qabadka cabsida. Waxaa jira muujin iyo fahan Ilaah isiiyey. Waqti laga joogo 20 sano ka hor. Waxay ila ahayd intaan dareemaya cabsi inaan ahay fulay. Waxaan sii rabay inaanan dareemin cabsi. Kadib waxaan bartay in cabsi mar walba jirayso. Taasi waa jidka keliya shaydaanka nooga horjoogsa inaan horumarno. Weligaan kuma noolaan doono nolol aanan dareemayn cabsi marmar. Wax badan oon siina iyada waa markii wax badan xukumayso. Qaar idinka mid ah waxaa haysataan cabsi hooseed noloshaada ah. Cabsi aan la garanayn, cabsi aan caadi ahayn. Waxaa laga yaabaa inaad cabsidaada kala xishooto inaad u sheegtid dadka kale. Liiska cuqdada oo dadku haystaan runtii waa bogag iyo bogag dheer markaa bilowdid inaad baratid. In badan oo wajahdid cabsida. Waxaad samaysid waxaad rabtid iyo waxaad u baahan tahay iyo waxaad samayn lahayd. Micno ma leh inaad cabsi dareemaysid in kale tabardarri iyo tabardarri ayaa soo galaysa noloshaada. I aamin caawa, cabsida kuma bixin kartid duco. Waa inaad wajahdid. Waa inaad barataa inaadan ka baqin cabsida. Cabsi ba'si micnaheedu waa wax been ah oo u muuqda run. Waxay ka dhigaysaa inaad u malaynayso inay wax dhacayaan oo aan weligood dhicin. Waan rumaysanahay inaad ka cabsan kartid waxyaalo noloshaada ah. Laakiin waxyaalo badan oo aan ka cabsano weligood ma dhacaan. Xitaa hadday dhacaan, cabsida aan u ogolaanay inayna saxariiriso way ka sii xun tahay tan nagu dhici lahayd. Hadday dhacdaba. Waxaan kaloo idinku dhiirigelinayaa inaad ka fogaataan naxdinta. Waayo naxdintu waxay aad ugu dhowdahay cabsida. Waxay kugu hogaaminaysaa cabsi. Waxaan inta badan dhahnaa waan ka baqayaa inaan aado dukaanka. Waan ka baqayaa inaan gaariga ku wado jidka. Qaar idinka mid ah waxay ku fikirayaan waan ka baqayaa inaan gaariga u kaxeeyo guriga markuu shirka dhamaado. Waxaad qorsheynaysaa in shaydaanka kaa xado farxadaadii iyo waxaad halkan u timid. Waayo waxaad bisii qorsheysay oo iska dhaadhicisay inaad ka baqaysid ku noqoshada gurigaaga. Ilaahay halkan kuuma keenin inaad ka baqatid ku noqoshada gurigaaga. Wuxuu kuu keenay inuu ku qalabeeyo si aad ugu laabatid guriga. Adigoo haystay dhaqan ka duwan kii hore. Wuxuu kugula dirayaa guriga dhiiranaan, rumaysad badan. Ka baqaynin wixii aad ka baqaysay. Intaa soo bixin. Caawa waxaan idin barayaa 7 nooc oo cabsi ah.
waxaa laga yaabaa in qaarkood igu qaataan in ka badan kuwa kale. qaarkood waad garanaysaan waan idin xasuusin. qaarkoodna waxay ku noqonayaan wax gaar ku ah waxyaalahaas oo aan ka cabsano oo aadan weligaa iyo weligaa ka fekerin. tan koowaad oo aan rabo inaan idinkala hadlo waa cabsida dhibaatada, dacwooyinka iyo dhibaatooyinka. waxaan ka bilaabayaa inaan iraahdo runtii ma jiro baahi looga cabsado iyaga. waan hubaa waad haysataan. gabar baa mar waxay tiri saaxiibtay ah, waxay jirtay 40 uur bayna yeelatay markii ugu horreysay. runtii aad bay uga cabsanaysay inay dhasho. waxay tiri waxaan aad uga baqayaa xanuunka. waxaan ku iri xal ayaan u heli karaa taas. waad samayn kartaa. waxaan iri ha ka cabsanin, way ku xanuunjinaysaa. milyuumaad naaga ayaa sameeyey, wayna nool yihiin. ma aha inaan bilowno inaan ka cabsano wax la hubo inay dhacayaan 2 gooraba, laakiin haddaan ka cabsano xanuunka unbay aad iyo aad u sii badinaysaa. waad ogtahay adiga laftirkaaga haddii meel ku xanuunaysa jirkaaga. sidaan ka maqlay dhakhtarkayga dhabarka, kolkii dhabarka i xanuunay mar laga joogo sanad iyo bar ka hor, runtii aad buu u xumaa. waana markii aan bilaabay inaan isticmaalo kursigan, kadibna waan jeclaaday. waxaan ahay qof weyn, waxaana samayn karaa waxaan rabo. waana sidaas. geesi ayaa noqonaysaa markaad duqowday, ma og tihiin? ma isku dayaysa inaad qof qancisa mar kale? maya. waxaad xor u tahay inaad ahaatid qofkaa tahay oo samaysid waxaad rabtid, ma og tahay? wuxuu igu yidhi ogow, ha isku dayin inaad sii kicisid inta aad taxadaraysa, ama haddii qoorta ku xanuunayso. in badan oo aad sidaan samaysid, in badan oo ka cabsatid xanuun wuu ka sii daraa. waana sidaa dhinac kasta oo nolosha ah. maxay ku dhahaan markaad dhalaysid? neefso, naso, neefso, naso. anigana waxaan rabaa inaan idinla qaybsado fikirkaas caawa. wax kasta oo ka cabsanaysaan, cabsidaasi way kaaga sii daraysaa. haddii aad og tahay inaad dhex maraysid 2 gooraba, markaas wax tar ma laha inaad cabsatid. waxaad tidhaahdaa ilaah wuxuu siinayaa naxariis marka wakhtiga yimaado. wax walbana waan samayn karaa gargaarkiisa masiixa kan i xoogeeya. nolosha ma fududa, waan ognahay taas. laakiin ilaah wuxuuna siiyey awoodda weyn ee ruuxa quduuska si aan u samayno waxyaalo adag annagoo dhool caddaynayna oo farxad ku jirta wadnaheenna. waxaa nagula shuba ruuxa quduuska si xoog leh. aamiin. may maqasheen? waxaana loogu subkay ruuxa quduuska si adag. ma aha inay wax walba noo fududaadaan. ma nihiin daciif. waxaa naga buuxa ruuxa quduuska. dagaalyahanno. waxaan haysanaa awoodda ilaah oo ku samaysan karno waxyaabo sare. david wuxuu ka hadlayay saaka waxyaalo waddankeena, wuxuuna ka hadlay taariikhdiisa, wuxuuna tusaale u soo qaatay haddii aad akhrisid buug taariikh sax ah oo ku qoran wax walba oo ilaah sameeyey. waa sidii wax ruuxi ah markaa akhrisid waxyaalihii uu ilaah u sameeyey waqtiyadii hore waddankeena, waayo dadku waxay ku xirnaayeen ereyga ilaah. sharciyadeena waxay ku salaysnaayeen ereyga ilaah. markaasina wuxuu yidhi haddii aad ilaah ka bixisid taariikhda, taasoo ah waxa dhacaya maanta. in badan ee bugaagta taariikhda iskuulka ama dukaamada, ilaah laguma qoro hadda. waxaa haysatid oo dhan waa wax dabiici. haddaba ilaah la'aantiis waxaan nahay dabiici. ma samayn karno wax ka badan waxyaalaha dadka kale. waxaan haysanaa kan sare. markaas waxaan ku noolaan karnaa nolol sare. waxaan samayn karnaa waxyaalo sare. waxaan idinku dhiirigelinayaa caawa, uma baahnid inaad cabsatid. waa laga yaabaa inaad dareento cabsi, laakiin uma baahnid inaad cabsatid. farqi ayaa u dhexeeya inaad cabsi dareento iyo inaad cabsatid. hore waad u socon kartaa jilbaha oo ku gariiraya iyo afkoo qalalan iyo wadnaha ku garaacaya. dhehna ilaah ayaa ila jira, weligii igama tegaayo, imana dayrinaayo. waana samayn wax walba oo aan rabay inaan sameeyo, mana cabsan doono. maxaa dad igu samayn karaa? qof miyaa diyaar u ahaa arrintaas? mahadsanidin.
uma baahni inaad ka cabsatid dhibaatada ma aha inaad ka cabsatid dhibaato imaanayso way imaan waxaad tiri taasi ma aha dhiirigelin taasi waa run idinkuma caawinayo been waa doqonnimo inaa halkan taagnaado oo idiin sheego haddii aad ku socotid rumaysad oo shaydaanka dhabarkaaga ka ceerisid isagu idinma keenayo dhibaato noloshaada taas waa doqonnimo sababtay dadka dib ugu noqdeen waa waxbaridda noocaan ah way badbaadeen haddaba waad ogtahay in ciise hagaajinayo wax walba oo noloshaada ah haddaba waa laga yaabaa laakiin waxay ku qaadan kartaa in ka dheer intii aad ka rabi lahayd wuxuuna barayaa inaan la samayno wax walba oo adag ma aha inaan ka leexano wax walba oo adag si aan u faraxno Markos 4:35 ciise wuxuu doon la koray xertiisii oo ku yiri aan u gudubno dhanka kale hadduu ciise yiraahdo aan u gudubno dhanka kale waa la hubaa inaad dhanka kale u gudbaysid way fududahay bal aan eegno waxyaalaha kale dhacaya wuxuu ka tegay kooxdii way wataan siduu ahaa doontii uu isaga dhex fadhiyay doonyo kalena way la socdeen waxaa kacay duufaan caraysan oo dabayl wadata ayaa kacay oo garaacayay doonta markaasna durbadiiba way buuxsantay ciise wuxuu yiri dhinaca kale aan u gudubno arrinka labaad oo dhacayna waa duufaan laakiin isaga wuxuu ku jiray doonta dhankeeda dambe isagoo hurda weligaa ma dareentay in ciise ka hurdo noloshaada way toosiyeen oo ku yiraahdeen sayidow miyaanu waxba kula ahayn inaan lunno wuuna toosay kolkaasuu canaantay dabayshii oo ku yiri aamus oo joogso markaasaa dabayshii degtay wayna degtay sidii iyadoo ku daashay garaaceeda waxaa jiray isla markiiba deganaan weyn iyo nabadgelyo hadda waxaan rabaa inaan wax yar oo ku jira aayaddaas idin siiyo aayaddaas ciise kulama uusan hadli lahayn nabad haddii uu murugaysnaan lahaa kuma hadli kartid nabad haddii aadan haysan nabad waxaan samayno marar badan waa annagoo haysana xaalado murugo leh waxaana u ogolaanaa inayna murugayso markaasna murugadeenna way ka sii dartaa runtii waan isku xirnaa dhibteenna waana sii xumaynaa laakiin markaad haysatid nabad shayddaanka ma yaqaan wuxuu kugu sameeyo taasi runtii waxay siinaysaa inuu ka qalbi jabo markuu wax walba kugu soo tuuro wuuna og yahay sidaa adna waxaad ku sii soconaysaa inaad nabad sii haysatid kuna socotid jacayl iyo inaad ammaantid ilaah hadda waxaan idiin sheegayaa habka dagaalka ruuxa sida ugu fudud kuna faraxdid nolosha aayadda 40 wuxuu yiri maxaad u baqaysaan oo u cabsanaysaan maxaydan u lahayn rumaysad ma jirin kalsooni adag turjumaad qaar ayaa leh wuxuu ka canaantay cabsidooda waa inaan xaqiijino markay jirto duufaan inaan u deganaano sidii markii ayna jirin duufaan marka duufaanta waa inaan ahaanaa sidii iyadoo duufaan jirin waa maxay in la ahaado kuwa guulaysta waxaan aaminsanahay inaad mar hore og tahay inaad guusha sii heshay ka hor dhibaatada haddaba markaad maqashid dhibaato uma baahnid inaad ka cabsatid waxaad dhahdaa waan ogahay inaan guulaysanayo laga yaabay inaan dhex maro laakiin ilaah ayaa ila jira ma jecli tan mana ku waalni laakiin waan samayn karaa waxaan rabay inaan sameeyo uma ogolaanayo inay iga xaddo nabaddayda igamana xumaynaysa maalintayda waan ku samayn karaa waxaan rabo magaca ciise masiix aamiin waxaan idin hayaa eray aan rabo inuu wadnihiina gala caawa oo aan ku qoray buugayga waana mid fudud wajah ha ka cabsanin wajah ha ka cabsan Korintiyaska 1:16 Bawlos wuxuu yiri albaab weyn oo shaqo ayaa la ii furay oo wata cadaawayaal fursadaha waxay wataan mucaarad waxaan dhahaa heer cusub macnaheedu waa shaydaan cusub waad ku ducaysan kartaa in lagu dalacsiyo shaqadaada laakiin waxaan ku leeyahay markaad noqotid hogaamiye maamule macnaheedu waa inay dad badan ku jeclaanayeen ma idin qalbi jabina laakiin waxaan idin sheegayaa runta waxaad ku fikirtaa qof walba waa jecel yahay laakiin kuma jecel hadday sidaa kula tahay dadkoo dhan sidaa lama aha
in badan oo aan dadka wax baro waa in badan oo aan isku xiro wax waa inaad go'aan ka gaartaa nolosha inaad indhaha ku haysid waxyaalaha fiican iyo waxyaalaha wanaagsan waxba kaama gelin dadka kale oo caadaysta cabashada ha cabtaan oo yeena adiga ku murugayn haddii kale waxaad luminaysaa fikirka mana samayn kartid wixii aad rabtid inaad samaysid noloshaada waa inaad taqaanaa ilaah midkaad isaga ku tahay iyo inuu ku jecel yahay waad og tahay inuu ku hayo qorshe uu kugu badbaadiyo intaadan helin dhibaato ilaah wuxuu ku hayaa qorshihii badbaadada micnaha isaga wuxuu ku diyaariyay badbaadinta waa inaan barano sidaan u dhahno sida kitaabka uma baahni inaan dagaalkan dagaalamo dagaalku waa kan ilaah waxaan ku joogi doonaa nabad iyo farxad haddii igu yiraahdo wax samee waan samayn waxaan gelayaa nasashadiisa waxaan sugayaa inuu cadaawayaasheeda cagahayga hoostooda keeno go'aan gaar caawa xitaa haddii ay hal maalin kugu hartay dunidan waad ka helaysaa ha u ogolaan inuu shaydaanku kugu cadaabo cabsi tan labaad cabsida ah inaan helayn waxaan rabno markaa bilowdi inaad dadka u sheegtay inaysan waxaad arki doontaa dadka sida ay u eg yihiin haddii aan dhaho ka waran haddaa ilaah weydiisatay wuxuuna kula rabin oo aadan helin waxaad rabtay qofna iima sabcinin hal mar xitaa ma helin qof sabciyo waa sida fariinaan caan ahayn runta waa inaan idin sheego qof walba oo idinka mid ah ma heli doono wax walba uu rabo qaarkiin waxaad ku ducaysataan wax xun qaarkiinna ujeeddo qaldan qaarkiin waxaad weydiisatiin waxyaalo idin baabi'in kara mana ogidiin taas qof walba ma helaayo wuxuu rabo haddii aad ilaah jeceshaha oo aad ku kalsoon tahay waad ku farxi doontaa si kastaba mararka qaar wax badan oo aan rabno waa wax badan oo na cabsiiya calaamad walba oo ah inaanan helin ka waran haddaan weligay guursan haddaba weligaa ma guursanaysid waxaan taas ku jiro biyodhac laakiin qofna ogolaasho uguma baahnid waxaad rabtid inaad samaysid haya waan jeclahay inaan xaas ahay hoos uma dhigaayo guurka laakiin waxaan leeyahay waad faraxsanaan kartaa si kastaba haddii kan ama kaas uma malaynayo inaan u dulqaadan karo way igu badan tahay uma sii dulqaadan karo maalin kale awood sare ila socda ku darkan sare noloshaada rumaysana inaad samayn kartid wax walba qasab maaha inaad haysatid qasab maaha inaad guursatid si aad u faraxdid oo aad faraxdid maaha inaad carruur haysatid si aad u faraxdid maaha in lagu dalacsiiyo si aad u faraxdid maaha inaad maamulo ahaad si aad u faraxdid farxadda adigay kugu jirtaa imaqla waxaan iri farxadda adigay kugu jirtaa waan ka cabsanayaa inaan helin waxaan rabay haddaba ilaa aad u ducaysatay sidii ciise rabbiyow iga hor qaad koobkan hase ahaatee ha ahaato doonistaada yeena ahaanintayda mar walba waa qabaysaa cabsida ah inaadan helin waxaad rabtid runtii waxay ila tahay aad ayaan ugu ducaysanaa waxaan rabno waxay ila tahay inaan ku ducaysano ilaahu waxaan rabaa waxaad rabtid waxaan rabaa waxaad rabtid rabbiyow adigaan kugu farxi doonaa oona isiin doono wuxuu rabo wadnahayga saxda ah waan aaminsanahay inaa isiinaysa wax saxda ah hadda markaan si cad u arkay ereyga dhiiranaan ayaan u dabagalaa oo ugu ducaystaa laakiin haddaysan ku jirin halkan waxaan ku ducaystaa ilaahow waan ku weydiisanaya tan oo u malaynaa inaan rabo laakiin haddaysan sax ahayn ha isiinin waayo waxaan nolosheeda ku haysan jira waxyaalo aan sax ahayn iyo aamin uma baahnid taas ila soco imisaa idinka mid ah ayaa qaldamay oo sameeyey shuqullada jirka oo helay waxaan u fiicnayn kadibna aad uga calool xumaaday aad uga xumaaday ilaah wuxuu ku siinayaa wixii kugu habboon wuxuuna ku siinayaa waqtiga kugu habboon iyo habka ugu fiican waa inaan ku kalsoonaana taas waana inaanan ka cabsanin inaanu ku helayn habkeena haddaba ha ka cabsanin waad wajihi kartaa habkaaga kuma helaysid qof walba oo halkan fadhiya caawa ma helaayo wax walba uu malaynaya inuu rabo
fiiri waa idin sheega lama sabcin waana idiin sii diga mar hore welina ma aydan sabcin waa sida iyadoo qof walba uu helay indhacadayn maran runtii soo manihin dad qosol badan jirkaas waa inaa helaa waa inaa helaa ilaahay mar walba nama siiyo waxaan rabno laakiin wuxuuna siiyaa wixii ugu dambayntii si wanaagsan noogu shaqeeya haddii wax aysan sax ahayn hadda macnaheedu maaha inaysan si wanaagsan u shaqaynayn dhammaadka waxay ila tahay mararka qaar inaan qabatino inaan u helno habkeenna sanooyin noloshayda ah ma aanan farxi jirin haddii aanan helin sidaan rabay inaan sidaan rabo helo waxay ii ahayd sidii muqaadaraad waxaan ka wadaa haddii aanan u helin sidayda waan iska naxayaa markiiba la soco ma fahanta waxaan ka hadlaayo haddii aan xukumin dadka oo aan kontrolin dadka wax walba oo igu jiro waxay noqdeen waanan ku daali taas waxaan ugu yeeraa marmar masiixi waxaan ahaa qof ay xaaladiisa xukunto gabi ahaanba xaaladaydu i xukunto haddii aan helo waxaan rabo waan farxi jiray haddii kalena waan murugoon jiray waan ku daali taa haddii aad adna ku daashi taas waad bedeli kartaa noloshaada waadna dhihi kartaa saas uma sii noolaanayo mar dambe ilaah ayaan xaaladahayga u wakiilan doonaa isaga ayaan aaminayaa in ka badan naftayda jidadkayga ayaa ka sarreeya jidadkaaga fikiradayda ayaa ka sarreeya fikiradaada u ogolow ilaah inuu ilaah u ahaado noloshaada waxaan isi siinaa murugo qarsoon nolosheenna si aan u helno waxaan rabno laakiin haddii aan rabi lahayn wuxuu ilaah rabo inteena ka badan nabaddeena iyo farxaddeena si aada ayay u kordhaysaa aan mar kale dhaho ma jirto baahi looga cabsado inaad helayn sidaa rabtid runtii ma helaysid sidaa rabtid mar kasta haddaba baro sida aa uga heli lahayd runta hadda waad fahanteen hagaag haddana waxaan rabaa inaan wax u sheego khaasatan dhegaystayaasheena telefishinka ma helaysaan sidaa wax u rabtaan mar walba idinkana si aadan ugu malayn inaan la hadlaayo dadka halkan oo keliya oo aadan ku jirin adiga haddaba jooji inaad wax khiyaanto adigoo raba inaad ilaah ka heshid waxaad rabtid oo baro sida ciise yiri aabbow rabitaankaaga ha ahaado yee ahaantayda aamiin nambar 3 cabsida dhammaystir la'aanta waxaad kaga bixi kartaa si dhaqso ah waayo uma baahnid inaad ka cabsatid ma dhammaystirnid mana dhammaystirnaan doono mana la kulmi doonaan dhammaystirnaan adduunkan intaan ku jirno jirkaan dhammaystirnaan ma jirto kiniisad dhammaystiran ma jirto shaqo dhammaystiran ma jirto qof dhammaystiran oo la guursado ma jiraan ilmo dhammaystiran dhammaystirnaanta wuu soo noqonayaa mar kale weli halkaan ma joogo haddaba waa laga yaabaa inaad ku qanacdid dhammaystirnaan la'aan haddaba cabsidu ma maamuli karto noloshaada waad wajihi kartaa ka adkow oo xorriyad ku hel masiixa si aad u samaysid waxa uu ilaah kugu yeeray waad samayn kartaa xitaa adigoo ku samaynaya cabsi meeqa idin ka mid ayaa dareemaysa mashquul inta badan cadaadisna uu dul saaray haye aniga soo fiiri yaa sameeyey jadwalkaaga maanaa kuu sameeyey may yaa sameeyey jadwalkaaga adigaa sameeyey hadda yaa beddeli kara adiga la soco ha gununicin hadal yaa beddeli kara adiga waa sax hadda waad og tahay fikirkayga run ahaantii waa inaan isqariyaa markaan sheegay tan waxaan ku fikiraa mar badan waxaan ku fikiraa wax badan waxaan rabnaa leh inaan wax ka cabano
waa inaan halgalnaa waan mashquulsanahay qof kale wax ma samaynayo halkan aniga maahe haddaba uma ogolaan lahayn hadday isku dayaan xitaa hadday sameeyaan kuguma fiicna waxaad rabtaa inaad wada samaysay si aad uga calaacashid inaad wada samaysay haddaba ilaah noogama naxaaya annaga aameen hordhacan waxaa bixiyey saaxiibada iyo howlwadeennada Joyce Meyer mashruuceeda